بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي عافانا. إلهي أيام هذا دنسكله. إلهي أنا كبرية إنه عافمات كينا إيو عمل كينا وناكسن به إنه عادكيه. inta weyd bade waxaynu ka hadlaynayo dadkuna ka hadlayeen maxaa heeday fayraskan dunidii jahwareeriye inaguna dee dunidaas baynu ka mid nahay walow aynay dhibaatadaas ina soo gaadhin ilaahayna aynagu mahad celinayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu ka baryayno inaanu ina soo gaadhsiinin dhibaatadiisa. waxaan doonayaa horta in badan baa laga hadlay dadkeenu runtii waa ka hawlgaleen aad baa looga hadlay aad baa wacyigelin badan loo sameeyey qof walbaabana meeshiisu isku xilqaamay runtii waana wax aad muhiim u ah oo la isugu bogaadiyo way ku mahadsan yihiin hadday tahay bahdii caafimaadka iyo dadkii kale aqoonyahanka ah runtii sida looga hawlgalay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. anigu waxaan doonayaa in yar ku noqon maayo fayraska iyo halku ka soo bilaabmay iyo noociisa iyo amuurahaas oo dhan in badan baa imika laga hadlayo dadku runtii way ka dharagsan yihiin dadkeena inta waxa ay fahmi karaan ay maxaa heeday iskagana ilaalin karaan dhibaatadii ayaynu rabnaa inaynu fariinta sida ay fahmi karaan aynu ugu gudbino waxyaabaha muhiimka u ahna runtii aynu u sheegno waxyaabaha muhiimka u ah rabo aniguna inaan halkan in yar aan rabo dadka inaan u sheego waxay tahay horta waxa ma ogaan karno imikadan laftigeeda inuu xanuunkeenu ku jiray in kale dad badan baa hargabyo la liita anigoo shalay ugu dambeysay keysaan aad iyo aad ugu shakiyay baa igu yimi goobteeda shaqada hooyay ahayd kontaneeyo ah da'deedu runtii aad bay u xanuunsanaysay walow ay xumadeedu yarayd oo sababtaa ay tahay sababtaan anigu laftigaygu dee aanu fasaxay markii dambe haddana calaamadihii kale oo dhan waxba umay dhinayn marka ma garan karno xanuunkii inuu inagu jiro weli ma garan karno dadka ilaahay iska wata baynu nahay aan wax badan waxba ka qabsan karin marka waxa muhiim ah oo doonayaa inaynu uga hawlgalno dhamaanteen horta inaynu meelaha dadka danyarta ay joogaan aynu ka bilowno wacyigelinteena oo aynu de inteennii fahansanayd aynu meelaha isku rarantaa xaafadaha dadka danyarta ay joogaan aynu gallo dadkeena aynu wax fahansiino wad ogtihiin dadkeenu nadaafadda aad iyo aad bay ugu liitaan farxalkoodu waa siiro nadaafadda gacmaha waxaan odhan karaa anigu dadkeena nadaafadooda gacmo waa siiro waxay ay qaar badan ku doodaan 5 waqti baan tukanaa 5 waqti biyo yar bay faraha iskaga shushbaano dabatana inkastoo weysadu day nadiif tahay oo nadaafad tahay haddana dee intaasoo dhan wax kaloo aad qabanaysa baa jirta wayna ognahay dadku sida markay maaragtay suuliyada iyo toiletyada la isticmaalayo nadaafadooda runtii waynu garan karnaa dadkeena oo dhan mana dafiri karno inaga awalba xanuunada lagu kala qaado nadaafad darradu waynagu badnaay nadaafadeena ay muujinaysaa halkay taagan tahay iyo si ay u liidato shubanada oo dhan badankooda wax lagu kala qaadaa nadaafad darro inagana waynagu badan yihiin markasta waaba iska taagan yihiin bashubanku marka dadkeeni waxa weeyaan horta waa inaynu sheegnaa gacmaha iyo siday u maydhayaan taa inaynu ka hawlgalno oo aynaan ka nasanin habeen iyo maalin weeyaan aynuna ka bilowno meelaha dadka danyarta ay degan yihiin siday gacmaha u maydhayaan aynu barno wax laga yaabaa inaanay helinin dee saabuuno iyo waxyaabahan dee rabno in gacmaha lagu nadiifiyo waxaa muhiim ah in loo sheego in ay biyo milix leh milix biyaha intay ku shubaan milixduba way ka adagtay fayraskan wayna dili kartaa biyaha milix intay ku shubaan meel dhigaan qof walba markaa biyaha milixda leh ku farxasho
kale waxa weeyaan afka iyo cunaha in qaleylka laga ilaaliyo qofku waa inuu biyo cabaa markasta waa qodob aad muhiim u ah afka iyo cunaha hadiiba viruskii uu kusoo galay cunahaagii afkaaga hadii maxay hayday ay qalalan yihiin viruskii halkaa ayuu joogayaa wuxuu ga sii gudbayaa hawada qaadayso dabatana sanbabadaadii xaggaa soo sii gudbayaa haddii kale aad biyo cabto waxa laga yaabaa inuu xagga caloosha u dhaadhaco calooshiina ICD ayaa dilaysa ICD caloosha ku jirtay viruska way ka adag tahay lagumana talagelin viruska caloosha oo dee kuma noolaan karo ICD-daas ka adag marka dadka horta inaynu inaga iyo dadkaba aynu sheegno inaynu afka qaleylka ka ilaalino mar walba biyo cabno si viruskaas hadiiba uu afkeena usoo galay iyo cunaheena maxay haydo hoos ugu dhaadhaco kaas waa qodobka kale muhiimka ah weeyaan dadku waxa laga yaabaa qofku inuu 10 feet haduu ku jiro aanu kusoo gudbin karin viruskii oo de viruskii dhexda meel kale aadayo ku baabaayo aan kusoo gaari karin waxa markaa muhiim ah oo aad iyo aad muhiim ah qofkii marka uu duufsado meel de uu duufkii ku taabto waadna ogtihiin faraheena intaynu sidaa isaga siimino dadkeena badankiisu intay faraha saysa kaga siimiyaan ayuun bay markiiba meel taabanayaan waana taata khatarta ah meel baa farii lagu taabanaya cuntadii bal imagine roodhida dukaanada lagu iibiyo wax ka nadaafad daran weligii maan arkin roodhida dadkeena aad bay isticmaalaan dabna iskama saaraan markiiba intay qaataan qofkii gacantii wax walba ku qabtay ugu soo qaado ayuu miiska ugu soo tuuray oo qaadanay ilaa halkii ay ka soo baxday ama muufaha ha ahaato ama maxay hayday bakeeriyada ha ahaatee roodhida lagu sameeyo intaas oo dhan waxa weeyaan ilaa dukaanka ay soo gaarayso ilaa qofkii cunaya ay gaarayso nadaafad darro intaas oo dhan soo martaa waxyaabaha ugu daran waa roodhidaas iyo cuntooyinka kale fast foodka faraha inta lagu sameeyo gloveska la xiranaynin qofkii hore intuu ka qaato cunayo maxay hayday aan hadii la doono undercooked-ka intaas oo dhamiba waa root of infections bay noqon kartaa waxyaaba ay xanuunkaasi naga fidi kara noqon kartaa wadamada dariskeena oo dhan de waynu aragnaayo way soo gaadhay waxyaabo badan bay nooga soo gala khudrad bay nooga timaada qaadkan la cunayay baas baa kasoo gala qaadkaana awalba xanuuno badan buu maxay hayday la kala qaado buu fidiyey runtii waana sida easiga ugu fudud waxyaabaha loo kala qaadi karo weeyaan waa lasoo taataabanaya sida roodhidaan sheegnay qofkii cunayayna hor ka cunaya khudaartii dadkii iibinayay maadaama dadkeena aynu soo sheegnay in farxalkoodu aad u liito khudaartii baa lasoo iibsanayaa kii iibinayay maanta dhan buu faraha ku wadayaa farihii ma faraxalaye cuntadii buu hor ka cunaya qof kaluuba gacantii ku taabanaya intaasoo dhamiba waa inaga waxyaabaha khatarteenuga ah inagu runtii waynu u jilicsannahay waynu u nugulnahay ilaahay baase inaga haya ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inaga hayo balse intii taagteena dadkeena aynu kala dadaalno wacyigelin badan aynu samayno oo nadaafadda ku saabsan inaga nadaafad darra ayuunba waxay noogu iman karaan runtii nadaafad darradeenu aad bay u badan tahay aynu wacyigelin badan samayno oo aynu welibana xaafadaha danyarta isku raranta ah dadku nadaafadooda ay runtii aadka u sii liidato wacyigelintuna inta badan aanay gaadhinin aynu ka bilowno haddii alla ka dhigo ilaahay hayna ilaaliyo qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mawlaanaa wacala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun